عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan kasii wadaynaa casharkeena imtixaanaha inoo ahaa taaliga waxa waaye software ka mid a softwareada lagu xisaabsado akoontiga ee shirkadaha ama kambaniyadu adeegsadaan marka kambaniga markaad asaasayso ayaan hore usoo qaadanay oo sida loo asaaso kambani aan soo qaadanay maantana waxaan rabnaa inaan isla sheegarano ama wadaagno inaan sameyno kambanigi markaan sameyno aan ogaano sida transactionada loo geliyo oo mataqaana marka transaction la sameeyo sida loo gelinayo mataqaana pageska ama itemska sida alaabta loo gelgeliyo ayaan rabnaa maanta inaan ogaano marka waxaan sameynaynaa hore ayaa waxa usoo dhiganay aan usoo qaadanay inaan sida loo asaaso kambani haddaan rabno waxaan sameynaynaa mar labaad ayaa kambani cusub asaasaynaa marka kambani asaasayna halkan aad tegaysaa haddaan soo bilaabo escape baa leedahay escape markaa dhao saas waaye shaashada mataqaana marka ugu horeysa aad furayso taaliga marka waxaad tegaysaa meesha ku qoratay cmb inform baa ku dhufanaysaa markaad ku dhufato halkan ayaa taabanaysaa ku qoratay create company oo ah kambani asaas marka create company aad ku dhufato oo kambanigaas wuxuu ku leeyahay kambani aad rabto inaad asaasto halkan ayaan rabnaa inaan marka kambaniga asaasno marka magacii ayaa sheegaynaa kambaniga ayaan gelinaynaa magacii kambaniga ayaa gelinaynaa oo kambaniga rabno marka kambaniga rabno waa kambani mataqaana magaciisa x electronic waa kambani electroniga qaybta alaabta electroniga qaabilsan waa kambani qaabilsan alaabta electroniga waaye marka enter baa leedahay enter ayaa leedahay enter marka meeshan waxay ku sheegaysaa wadanka joogta ayaa gelinaysaa ani hadda Hindiya jooga Hindiya ayaa leedahay dan waxaad gelinaysaa stateka aad ka joogto meesha wadanka joogto stateka joogo waxa lahaa Andhra Pradesh ayaa lahaa marka Andhra Pradesh kusii dhufato dan baa leedahay pin code magaalada state kasta wuxuu leeyahay pin code waayo wadanku wuxuu ka kooban yahay state badan ayuu ka kooban yahay marka state kasta wuxuu leeyahay pin code marka Andhra Pradesh gobolka joogo pin code-kiis waxa waaye 500001 waaye stateka marka dan ay leedahay xagga wax ku leeyahay telefoonka geliyo haddii telefoonka geliyo qof kasta telefoonkiisa ayuu gelin karaa 9160230152 nambarkaaga ayaa gelinaysa marka nambarka geliso email haddii leedahay emailka ayaa gelinaysa hawla qofka si dhaafaya dan waa soconaysa kambanigeena waxaa la asaasay 2010 bishii Abriil kowdeedii marka enter ayaa leedahay inta waa iska dhaafaya enter ayaa leedahay enter ku dhufanaysaa dan wuxuu ku leeyahay accept ma save gareeyaa inaad kambanigaaga asaasay oo loo x electronic marka yes ayaa leeyahay marka haddeertan waxaa ii asaasmaya kambanigii ilaahay x electronic markaas waxaan sameynaya x electronic waxaan rabaa inaan maanta aan barano sida loo geliyo muxuu ahaa transactionada oo aan journal entry-ga ahaan aan u gelino alaabta markaad soo iibsanayso ama markaad mataqaana aad sale anadu sii iibinayso ayaan rabnaa si practical inaan maanta u aragno sida loo geliyo danna waxaan rabnaa hadhow inaan ogaano faa'iido iyo khasaare wuxuu ku sugan yahay kambanigeenu marka inta ugu horeysa aan kambaniga aan waa asaasnay haddeer kambanigii dan waxaa leedahay escape ayaa leedahay laabtoonkaaga qaybta bidixda ah dan halkaas ay kusoo baxaysaa oo ah create of tally marka waxaa loo baahan yahay hadda waxaan rabnaa inaan horta isla fahanno waa maxay waxaa loo baahan yahay intaan mataqaanaa qofkan taaliga baranaya ama qofka mataqaanaa taaliga ama any software like taaliga QuickBook PHP Tageasy dadka softwareada dhan ku shaqale waxaa loo baahan yahay inay leeyihiin basic financing knowledge basic ahaan mataqaanaa basic waa in waxyaaba mataqaanaa asaasiga ka yaqaaniin financiga ama accountiga marka adigoo accountiga wax si fiican ka aqoon way kugu adkaanaysaa inaad transactionada gelgeliso mataqaanaa taaliga marka course waxa loo baahan yahay inaad basic ka taqaanid muxuu ahaa accountiga marka ugu horeysa waxaan sameynaynaa journal entry sida loo sameeyo ogaanaynaa oo waa kan business transactionka waa kan sida u dhaco baranaynaa oo transaction sida u dhaco markaad sameyso oo kale aan sameyso journal entry halkan waxaa noo yaala muxuu ahaa warqad table ah oo kharashaadka waxaan soo iibsaday waxaan sii iibiyey muxuu ahaa salariga dadka shaqaalaha lacagtaa siiyey renti meesha ku joogo hadday kira tahay lacag maxaa korontadii kiradii aan bixiyey wixii oo dhan ayaa halkaa ku diyaarsan marka waxaas dhan wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo journal entry oo ah transactionkaas oo dhaca oo journal entry-gana waa kan waxaa kana ku yaala marka kan marka isla fahanno oo business transactionka isla fahanno oo dan journal entry-ga isla sii fahanno dan ayaa taaliga mataqaanaa gelgelin kartaa oo xisaabta ku ogaan kartaa ku xisaabi kartaa inaad profit leedahay inaad loss ku jirto inaad balance sheet-ka wuxuu yahay
cash waxaa lacag ku haysato, sundry debtors waxaa deyn dad ku leedahay, sundry creditors waxa adiga deyn kaaga maqan. Waxaasoo dhan waxaa ogaan kartaa markaa mataqaanaa balance sheetka aad taqaan muxuu ahaa markaad taqaana business transaction siduu loo sameeyo ayaa kulli ogaan kartaa. Waa tan gross profit oo kale ogaanaysaa, net profit, closing stock inta alaabta haraga kuwa, balance sheetka oo kale, cash inta lacag ku haysato, sundry debtors inta deyn dad kaaga maqan, sundry creditors inta adiga deyn lagu leeyahay. Markaas waxaa sida loo sameeyo markaa ogaato sida loo sameeyo aad taqaanid ayaa waxaa kuu fududaanaysaa taaliga inaad isticmaasho oo mataqaanaa transactionada aad gelgeliso. Marka casharkan meesha ugu horeysa wuxuu ku bilaabanayaa halkan ayuu ka bilaabanaya oo ah nin la dhaho Mr. Adam ayaa invested capital into business in cash. Wuxuu businesskiisa ku maalgashaday lacag gaaraysa $200,000. Marka $200,000 transaction ahaan waxay noqonaysaa journal entry-ga cash account to Adam capital account. Marka cash account to Adam capital account sida loo geliyo ayaan ogaaneynaa mataqaanaa muxuu ahaa waxaa ogaanaa sida loo geliyo taaliga. Marka taaliga tagayna taaliga markaad tagto waxaad tagaysaa markaad dhahdo escape markaad dhahdo waxaad tagaysaa Vonja account tagtaa. Vonja account markaad dhahdo waxaad tagaysaa meesha ku qorantay receipt oo ah qofkii mataqaanaa ganacsiga bilowday oo ahayd oo journal entry-ga ahayd muxuu ahaa cash account to Adam capital account ayaa rabnaa inaan gelino waayo waa kan ninkan ganacsiga bilaawday Mr. Adam ayaa investor wuxuu maalgashaday capital lacaga business kiisa in cash ah lacag $200,000. Marka ganacsi asaasiis waxay u baahan tahay lacag adigu aad haysato ama qofka kasoo deyn qaadato ama adigu lacagta aad lahaato. Marka lacagta aad hesho ayaa businesska bilaabi kartaa. Marka waxaan rabnaa transaction wuxuu noqonayaa cash account to Adam capital cash account to Adam capital account. Marka waxaan u baahanahay hadda inaan software-keena taaliga aan gelino oo hadda credit buu joogaa oo waxa credit fiiri cash account bi noqonaysaa cash account to Adam capital account. Cash account waa debit waaye, Adam capital account iyaduna waxay noqonaysaa credit noqonaysaa. Marka waxay noqonaysaa hadda meesha uu joogo waxay noqonaysaa waa credit waa credit waa CR wax loo soo gabo credit. Marka credit maxaa ah Adam capital account. Marka hadda waxaan sameynaynaa inaan Adam capital aan software-keen kuma jiro inaan ku save karino. Marka waxaad leedahay Alt C ayaa isla taabanaysa. Marka Alt C isla taabato waxaa ku qoran name-ka magacii company-ga oo qofka asaasanaya Facebook maalgashanaya. Marka magacii company-ga wuxuu ahaa Adam capital account Adam capital markaad dhahdo enter ayaa leedahay enter. Marka meesha under waxa waaye wuxuu hoos tag Adam capital account waayo wuxuu hoos tagaysaa capital bay hoos tagaysaa account oo xaggan ayaa ka raadsan kartaa halkan ayaa aad ugu raadinaysaa. Marka waa halkaas ayuu jirta listigan marka by default ahaan buu listigan meesha ugu jiraa Adam capital account waxay hoos tagaysaa capital account oo lacagtii ah capitalka lacagta uu ku bilaabay bis. Marka enter ayaa leedahay enter ayaa leedahay enter ayaa leedahay. Marka lacagtu business ku bilaabo waxay lacag $200,000 ah. dan waxaa leedahay enter ayaa leedahay dan debit waxay noqonaysaa haddaa journal entry-geena aan ku noqono fiiri journal entry-ga haddaa ku noqono cash maxaa noo ah debit. Marka halkan waxaa leenahay cashka muxuu ahaa debit marka halkan waxaa leenahay muxuu ahaa debitka waa maxay cash. Marka cash by default ahaan buu software ku jira cash baad dooranaysaa. Cash markaad doorato enter ayaa leedahay enter hadda waa tawagelinay Adam capital account to cash account. Tan waxaan rabnaa inaan save gareysano save ayaa leedahay waa save gareysanay oo lacagtii waan ku bilownay oo lacagtii waa gelinay markii ugu horeysay. Marka haddaas journal entry-ga aan sii raacno transaction-keena haddaas aan sii raacno maxaa ku xiga purchase waxaa soo iibsatay 10 monitor HP oo ah 200 oo 10 xabo soo iibsatay oo ah 2,000 oo xabo oo the paid bill number is 401 from Sundry Electronic for resale. Marka waxaa ku soo iibsatay 10 xabo oo monitor ah soo iibsatay xabadii qiimaheedu fadhiyo lacag 2,000. Marka bill number-ka haddaa aragto bill number-ka wuxuu noqonayaa deyn ayaa ku soo iibsatay oo qofkii aad ka soo iibsatay deynka biilku soo siinayay 401 bay noqonaysaa. Waayo marka wax soo iibsanayso saddex way noqonaysaa marka purchase sameynayso. Marka waad waxay noqonaysaa inaad alaabta soo iibsanaysa lacagta totally aad bixiso oo wax deyna lagugu lahayn. Marka labaad waxay noqonaysaa inaad lacagta half bixiso halfna lagugu lahaanayo. Marka saddexaad waxay noqonaysaa
in lacagta alaabta soo qaadato oo dhan aad deen kusoo iibsato oo wax lacag ah adigu aad bixin oo deen marka hadda tama ku warsanay wax kusoo iibsanay alaabteena deen ayaa kusoo iibsanay oo fiin oo waa bill numberka waa lasoo siiyey 401 lacagta alaabta soo iibsanay waa 10 xabo lacagta waxay noqonaysaa 2,000 marka transaction ahaan waxay noqonaysaa journal entry ayaa rabnaa marka ogaano journal entry waxay noqonaysaa purchase account to Sony electronic account marka transaction keen anaga buuggeen waxa ku qoranaynaa purchase account ina alaab soo iibsanay to Sony electronic soo iibsanay alaabta ka soo iibsanay waxay 200 xabo 2,000 bay lacagtu joogtay alaabtu ala xabo waxay joogtay 2,000 bay joogtay imisa ka soo iibsanay 10 xabo ka soo marka 10 kana waxa ku dhufanaysaa 2,000 marka 2,000 hadii lagu dhufto 10 waxay noqonaysaa 20,000 bay noqonaysaa markaas saas ay noqonaysaa muxuu ahaa journal entry-gina purchase account to Sony electronic account saas noqonaysaa journal marka waxa loo baahan yahay inaan marka hadda transaction keena aan gashano muxuu ahaa software keeni aan galino marka waxaad tagaysaa purchase account ay tagaysaa purchase account marka tagto software-kan waayo software-kan inaga isticmaalo oo meheradan ayuu noo yaalaa halkan waxaad gelinaysaa reference number oo ninka ku soo siinayay numberku ahaa numberkan ayaa gelinaysaa oo ninka ku soo siinayay oo ahaa 401 ayaa gelinaysaa 401 ayaa gelinaysaa halka reference number oo saad waxa soo dhow deynta lagu leeyahay 401 marka oo waa deynta lagu lahaa xaggaas gelinaysaa dan enter ayaad leedahay halka waxa noqonaysaa party name noqonaysaa party name waxay noqonaysaa dadka adiga alaabta ka soo qaadatay oo shirkadda kambaniga mataqaana ama bakhaarkii ama meesha alaabta ka soo iibsatay magaciisa muxuu ahaa wuxuu ahaa Sony electronic bahad waayo hadda waxaan bixinay deen ay wax ku iibsanay hadda tan ku xigta ay arkayna oo lacag bixinaynaa hadda wax ku soo iibsatay iyo alaabta ku soo iibsanay Sony electronic marka meesha wax galaysa waxaan galeynaa Sony electronic galaysa dan waxaa leedahay alt c ayaa leedahay alt c waxaa galaysaa Sony electronic oo ah meesha adeegta alaabta kasoo qaadan dan marka Sony electronic waxay hoos tagaysaa secondary creditors tagaysaa oo alaabta deynta inaga lagu leeyahay marka halkan ugu jirta default ahaan daro inoo sheegay halkan xaggana ka dooranaysaa secondary creditors ka dooranaysaa secondary credit marka dhigto enter baa leedahay enter ayaa leedahay enter save ayaa leedahay Sony electronic ilaa dhamaan waa ka waaye supplier qofka alaabta kasoo qaata waaye addresskiisa gelinaysaa marka waa iska dhaafaynaa dan enter ayaa leedahay xaggan waa maxay purchase account marka alaabta soo baalkeen software-keen waa cusub yahay kambanigeenu marka purchase inooma asaas marka waxa loo baahan yahay purchase asaasno oo purchase marka asaas one time baad asaas labaad ma asaasi karto waa kaa diidaya marka hadda waxaan rabnaa inaan purchase asaasno waayo hadda wax purchase inaguma jiro aan soo iibsan ma jiro waayo waa cusub marka waxaan leedahay add halkan name waxaa lahaa qaanada magaceeda waxaa lahaa purchase wax soo iibsato waaye dan inta markaas under wixii hoos tagaysaa purchase account ayay hoos tagaysaa oo halkan ayaa ka dooranaysaa purchase account dan enter ayaa leedahay dan enter save ayaa leedahay oo waayo hadda waa asaasay Sony electronic alaabta ka soo qatay purchase-na waa soo iibsashadii marka name of item marka alaabta magaceeda ayaa sameeyay name alaabta soo iibsan ayaa marka asaasayna marka waxaa leedahay alt c alaabta soo iibsanay maxay ahayd haddaan fiirsano aan halkan eegno alaabta soo iibsanay maxay ahayd monitor hb imisa xabaa soo iibsanay 10 xabaa soo iibsanay dan hadda gelinaynaa monitor hb baa ku qoraysaa monitor hb ayaa leedahay dan enter premier waxay tagaysaa alaabta soo iibsatay muxuu ahaa maxay hoos tagtay alaabta soo iibsatay monitor hb waa alaab electronic ayaa leedahay electronic waa alaab qalab korontada ah marka enter ayaa leedahay marka not muxuu ahaa units alaabta maxaa lagu xisaabiyaa alaabta waxaa lagu xisaabinayaa numbers oo tira ahaan alaabtan kg ma waa numbers ahaan waa lagu xisaabinaya marka halkan waxaa ka doonaysaa formal name waa numbers oo usoo gaabinaysa nms ayaa soo gaabinaysa shortcut waa soo gaabinaysaa dan enter ayaa leedahay accept ayaa leedahay halkan waa dhaafaysa accept ayaa leedahay xagga markaad joogto hoos ayaa kor baa ku noqonaysaa meesha ay ku qoran tahay costing method waxaa loo baahan inaad doorato FIFO ayaa ka dooranaysaa FIFO waxa waaye alaabta ugu soo hor iibsatay ayaana ugu hor iibinaysaa marka FIFO enter ayaa leedahay enter ayaa leedahay enter ayaa leedahay marka quantity alaabta soo iibsanay maxay ahayd 10 xabo ayaa soo iibsanay lacagtooda maxay ahayd 2,000 bay ahayd dan enter bal lacagta total isku noqonaysaa 20,000 oo waa taa 20,000 isku noqonaysaa hadda journal entry-geena aan soo fiirino waa kan alaabta purchase account electronic lacagta soo iibsanay maxay lacag 20,000 oo kale $20,000 oo kale ama 20,000 noqonaysa lacagtii
marka hadda aan sii soconno lacagta maxay labaatan kun bay ahayd waa enter baa leedahay enter 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 waa ka new reference waaye waa muxuu ahaa warqadii muxuu ahaa ninka deynta nagu leeyahay warqadii reference kan soo siiyey waaye enter 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 waaye waa save garaysanay markaan waxaan soo iibsanay alaab kale soo iibsanay waayo lacag 200 kun oo dollar ayaa sanaa waxaan ka isticmaalnay lacag 20 kun oo dollar ayaa ka isticmaalnay dan marka hadda waxaan soo iibsanay purchase waxaan soo iibsaday 5 mouse ah oo mouseka computer lagu isticmaalo waxaan soo iibsaday kun xabay soo iibsaday on cash from AK Electro markan deyn kuma soo iibsan 10 xabo waxaan ku soo iibsaday على كون حبة واحد كوسي يبسدي كون حبة واحد يبسدي شان حبة أو حبة يفردو كذو كون دولار وكلا يفردو أو العقد أساسا مروب بسهان لكن درهم بقولنا واحد يبسدي كون حبة واحد يبسدي شان حبة يبسدي على حبتنا متقنا يجوتو كون روبيز وكلا يجوتو كون دولار مركب محوها markan bay cash ku iibsado wax deyn ma sameynba oo deynku ma soo qaadan lacagta dhan way wada bixiiba marka deynta aad wada bixiso aad mataqaan lacagta wada bixiso maxay noqonaysaa purchase account to cash account marka join entry isla eegno kii saddexaad waa kan waa purchase account to cash account hadda maxay purchase account to Sony electronic account oo ninkii electronic ah ka soo iibsanaynay alaabtiisa ayaa ninka alaabta electronic ka soo iibsanaynay baa magaciisa ku qoran meesha hadda maxaa sameynay cash oo lacagtii bay cash ayaa ku bixinay marka waxaan dooranaynaa halkan tagaynaa purchase marka reference number ma jirto wax deyn lagu leeyahay ma jirto xaggana dhaafaysa party name baa tagaysaa party name maxay noqonaysaa cash noqonaysaa cash ayaa ku dhufanaysaa dan cash ku dhufato party name noqonaysaa cash xaggana waxay noqonaysaa purchase noqonaysaa xaggana waxay noqonaysaa purchase ku soo iibsanay marka name of item alaabta itemkeeda ayaa sheegaynaa oo alaabta soo iibsanay maxay ahayd alta CL waxaan soo iibsanay mouse ayaa soo iibsanay oo ahaa mouse LG baan leeyahay mouse LG ayaa soo iibsanay oo muxuu ahaa mouse LG ayaa leedahay dan enter bidimer muxuu hoos tagaya electronic hoos tagaya dan enter ayaa leedahay numbers dan enter FIFA waxyaabahan hadda hadayoor ayuu noo safgasnaa oo hadayoor ayaa sii sameynaba dan enter ayaa leedahay enter accept ayaa leedahay marka imsa ayaa xabaa soo iibsan inta xabaa soo iibsan maxay shan xabaa soo iibsanay shanta xabaa ala xabaa maxay naga soo siiyeen $1,000 oo kale naga soo siiyeen dan enter bal marka lacag total isku noqonaysa lacag $5,000 isku noqonaysa dan save ayaa leedahay bes hadda waa alaab soo iibsanay marka alaab soo iibsanay laba waxyaabood ayaa soo iibsanay oo ahaa laba waxyaabood ayaa soo iibsanay oo waxaa soo iibsanay monitor HP oo ah 10 xabo iyo waxaa soo iibsanay mouse 5 xabo marka hadda waxaan rabnaa sale ba iibinayna alaabta koow soo iibinay ayaa hadda iibinayna waayo FIFA ay marka soo darnay FIFA waxa alaabta u soo iibsatay ugu hor iibi marka sold 10 xabo doollar soo gadanay 8 xabo ayaa gadanay 8 xabo waxa ku iibsanay bay cash ayaa ku iibsanay marka waxaan tagaynaa software-keena ayaa tagaynaa marka wax iibsanayso waxaad tagaysaa waxaad tagaysaa F8 ayaa tagaysaa F8 ayaa leedahay sale ayaa leedahay sale markaan tago oo xagga reference number ma jirto wax deyn aan ku bixin ma jirto alaabta toos ayuu sii iibsaday enter ayaa leedahay martina waxay noqonaysaa cash ayay noqonaysaa oo cash ayaa mataqaanaa lacagta lagu siiyayba cash ayaa leedahay oo lacagta lagu siiyay qofka iga iibsaday cash ayuu siiyayba marka halkan sales la jiro marka waxaan qoranaysaa sales la jiro meesha ugu jirta inaad sales la jiro asaasi noqonaysaa halka sale leedahay xagga waxaa ku qoranaysaa sales muxuu hoos tagaya sales muxuu hoos tagaya under sales account ayuu hoos tagaya purchase muxuu hoos tagaya purchase account sales muxuu hoos tagaya sales account ayuu hoos tagaysaa marka sales ayaa leedahay name of item waa alaabta aan iibinay maxay yahay magaceedu alaabta iibinay magaceedu wuxuu ahaa monitor HP oo ahaa imisa monitor HP iibinay 8 xabo marka alaabta iibinay magaceedu ayaa iibinayna marka waa kan xaggan ay leedahay monitor HP waa tan 10 xabo ayaa 8 xabo iibinaynaa enter ayaa leedahay imisa iibinay 8 xabo 3 xabo marka iibinay imisa ka bixinay 8 xabo waxa ka bixinay $3,000 haddana maxaa ka soo bixinay 2,000 marka hadii 3,000 laga gooyo 2,000 maxaa ala xabo maxaa faa'iido ah $1,000 baa faa'iido ah marka maxaa ka bixinay $3,000 oo kale xaggan ayaa gelinaysaa enter ayaa leedahay 3,000 maxaa ku soo baxay lacag $24,000 ay ku soo baxay markaas 3 xabo gadan enter ayaa leedahay enter save ayaa leedahay dan hadda waxa sameeynayna mar labaad sale ayaa sameeynayna oo deyn oo ku soo iibsana oo kala ah
deyn lagaga iibsaday anaga. Sale waxaa iibisay 3 mouse ayaa iibisay LGA oo ah $1,300 ayaa siisay each. Master Akram ayaa ka iibsay bill numberkiisa oo bill numberkiisa waxa ay 8101 waaye. Haddana bill number markaa baartis ku iibsanay qofka ku siinaya bill number oo warqad receipt oo saa hadhow deynta ugu xasuusto. Haddana inagu bill number ma bixinayna sida adeerna qofka markaa deyn ku iibsanayna oo bill number noo siiyay. Inagu hadda maxaa siinayna bill number baa siinayna oo deyna. Marka hadda maxaa ku iibsanay deyn ayaa ku iibsanay. deyn ayaa anaga inaga iibsaday oo waxaa inaga iibsaday ninka la dhaho Master Akram. Marka journal entry muxuu noqonayaa cash noqon maayo. Haddana maxay ahayd cash account to sales account inaan lacag baa helnay sales baa naga baxday oo alaabta waqti. Marka hadda maxay noqonaysaa cash ma helin waxaa noqonaysaa Akram account to sales account. Akram account waayo Akram lacagna ma si beesh cash ka ahayd waxaa galaya ninka magaciisa Akram baa galaya. Marka waxaa leeyahay software kana gelinaynaa software waxaa leenahay reference number ayuu siiyay. Reference numberkiisa muxuu ahaa oo la siiyay reference numberku wuxuu ahaa ID101 ayaa leedahay dan baa leedahay. Marka halkan waxaa gelinaysaa cash gelimaysa waayo nin baa alaabta naga iibsaday. Ninka alaabta naga iibsaday magaciisa muxuu ahaa ninka alaabta naga iibsaday magaciisa ay gelinaysaa oo ninka alaabta naga iibsaday muxuu ahaa deynta naga qaatay muxuu ahaa Master Akram baa gelinaysaa. Marka Master Akram ayaa rabnaa meesha inaan gelin magaciisa gelinaysaa waxaa leedahay Master Akram. Master Akram muxuu hoos tagayaa sundry debtors sundry creditors haddana marka sundry debtors haddana marka purchase soo iibsanayna oo purchase deyn ku soo iibsanayna maxay noqonaysaa sundry creditors. Hadda taa marka inagu mataqaana deyn alaabta naga iibsaday oo alaabta inaga naga baxayso maxay noqonaysaa sundry debtors ayay noqonaysaa. sundry debtors noqonaysaa waayo marka alaabta purchase account marka adiga deyn lagaaga iibsado waxaa marka adiga sale oo alaabta deyn lagaaga iibsado waxay noqonaysaa sundry debtors. Marka adiga purchase alaab soo iibsanayso oo deyn ku soo iibsanayso purchase muxuu ahaa qofka magaciisa qoranayso maxay hoos tagaysaa sundry creditors. Marka inta labadaas la fahanno dan waxaa leedahay enter ayaa leedahay enter ayaa leedahay. Marka sale waa sameynay oo sale alaabta sale marka alaabta iibinay marka maxay noqonaysaa mouse bay ahayd mouse ayaa iibinaynay mouse ayaa leedahay mouse ayaa dooranaysaa mouse ayaa iibsanay. Marka mouse imisa xabo ayaa nagu iibinaynaa mouse waxaa iibinaynaa 3 xabo oo haddana waxaa soo gadanay mouse haddana imisa soo gadanay 5 xabo ayaa soo gadanay maxaana iibinay 3 xabo maxaa noo haray 2 xabo ayaa noo haraya. Hadda waxaa siinaa $1,300 ayaa siinaynaa. Haddana maxaa ka soo bixinay $1,000 oo kale ama 1 rupees oo kale ama 1 rupees inoo fidhi. Marka hadda maxaa siinaynaa 1,300 faa'iido maxaa noo 300 ayaa noo saaran. Marka waxaan kana tagaynaa dan waxaa leenahay maxaan iibinay 3 xabo ayaa iibinay 3 dan imisa ka bixinay 1,300 ayaa leedahay dan enter ayaa leedahay enter. Marka maxay noqonaysaa totally 3,900. Haddaan eegno journal entry-geena muxuu noqonayaa waa kan muxuu ahaa Akram account cash account 3,900 ama 3,900 ayuu noqonayaa. Dan enter ayaa leedahay enter ayaa loo save gareystay. Marka hadda maxaa ku xiga wuxuu yiri paid waxaa bixisay salary mushaar ayaa bixisay waxaa siisay Mr. Amjad 2,500 siisay. Ninka laho Amjad ayaa lacag waxaa siisay $2,500 siisay ama 2,500 rupees. Marka Amjad ayaa save gareysay waxaa bixisay marka expense kharashaadka ayaa bixinaysaa. Marka kharashaadka bixinayso waxaa tagaysaa payment ayaa tagaysaa meesha ku qoran tahay payment markaad tagto maxaa journal entry-ga muxuu noqonayaa hadda isla eegno inay si fiican journal entry fiir paid to salary marka salary account to cash account noqonaysaa waa kan waxay noqonaysaa salary account to cash account mushaar ayaa bixinay maxaan ku bixinay lacag oo Master Akram ayaa siinay. Marka waxay noqonaysaa halkan debit waxay noqonaysaa salary account salary waa ina asaasna alt c baa leedahay alt c salary akoonka mataqaana salariga mushaarka bixinayso waa inaad save garaysaa oo aad samaysaa salary muxuu hoostagayaa indirect expenses buu hoostagayaa oo ah indirect expenses ku dhufanaysaa then save ayaa leedahay salary mushaarka bixin ahayd 2,500 then maxaa bixinay cash baa bixinay ayaa leedahay cash
bes waa ka salary ayaa bixinay marka hadda maxaa bixinay hadda waxaa bixinaynaa lacag ma korontadii ayaa bixinaynaa ama rent ma kirada bixinaynaa rent paid master Omar ayaa siisay for the month bishii of the April lacagta bishii April ayaa bixisay oo maxaa ka bixisay maxaa siisay lacag 2000 oo ku xidha 1200 ayaa siisay 1200 1200 oo kala ayaa siinaysaa marka maxaa sameynaynaa xaggana ku qorsa maxaa bixisay rent ayaa bixisay alta C ayaa leedahay oo rent ay gelinaysaa account rentiga ayaa aad sameynaysaa rent muxuu hoos tagayaa expense indirect expense ayuu hoos tagayaa then enter ayaa leedahay lacagta bixisay maxay ahayd oo kale lacag 1200 ayay ahayd 1200 bay ahayd enter lacagta bixinay bay cash ayuu bixinay enter allah mustacaan marka dhammaan waa dhameynay xaggaas ayaa ugu dambeysay ranti marka waxaan ogaanaynaa faa'iido maxaa helnay khasaare maxaa helnay maxaa ku suganay marka waxaan rabnaa inaan mataqaanaa taaligeena aan ka ogaano maxaa faa'iido helnay maxaa khasaare escape ayaa leedahay then escape ayaa leedahay halkaa tegaysaa balance sheet baa tegaysaa balance sheet wuxuu ku sheegaya waxyaabo ganacsi oo soo faahfaahsan uu ku sheegay dhammaan halkan waxaa leedahay details ayaa leedahay details ayaa leedahay marka halkan ku qorto wuxuu yiri capital account lacagta ku bilowday bixinaysa lacag $200 ayaa lacagta ku bilaabay waa halkaa ku qoran marka wuxuu leeyahay sundry creditors marka qaybtan waa liability waa deynta waa xigtana waa maxay waa asset oo ah hantida adigu leedahay oo assetka meeradu leedahay wuxuu sundry creditors waxa adii deyn lagu leeyahay lacag 20,000 ayaa lagu leeyahay waaye dhammaan marka balance sheetka wuxuu noqonayaa 225,000 iyo 200 ayuu noqonayaa xaggan hadda eegna waxay noqonaysaa closing stock alaabta haraaga inoo ah lacagta qiimaheedu maxay gaaraysaa lacag $6,000 ah lacagta sundry debtors anagu lacagta deynta inaga maqan maxay tahay 3,900 cash in hand lacagta gacanta cadda ku soconaysa 2,015 iyo 300 ayay noqonaysaa haddaan eegno muxuu ahaa journal entry-geena haddaan eegno ama business transaction waa tan grossing profit net profit waxay eegna balance sheet waa way iskentay 225,000 iyo 200 waa ka baa 225,200 way iskeeneen oo way simeen waa isku mid waa sax waaye marka 225,200 marka cash in hand waxa ku haysanaa 215,000 iyo 300 cash in hand waa kan cash in hand waxa ku haysanaa 215,000 iyo 35 marka tan khaldan tan wax ka khaldan yihiin sida saxda ah waxay noqonaysaa 2,015,000 iyo 300 ayay noqonaysaa oo xagga xiriiriso dheeraada nagu jira marka hadda inta marka eegno waxay eegaynaa haddana waxay eegaynaa muxuu ahaa profit ka eegaynaa oo profit eegaynaa profit and loss account markaa ku dhufato then details aad dhahdo wuxuu yiri waa tan waxa waaye profit purchase account waa kan wixii gross profit waa 8,900 waaye net profit waa 5,000 iyo 200 waa kan gross profit waa 5,000 iyo gross profit waa maxay gross profit waxa waaye waa totalka guud waaye ee lacagta aan expenses lagama gooyo company-ga lacagta guud waa lacagta guud oo dhammaan aan faa'iido haysan waa maxay waa 8,900 net profit waa maxay waa saafiga waa faa'iidada saafiga ah aan haysano waxay noqonaysaa 5,000 iyo 200 ay noqonaysaa hadda journal entry-geena eegno waa kan waxa kan ku soo 5,000 iyo 200 waa saafi muxuu ahaa profitka saafiga aan haysano waa ta net profit muxuu ahaa net waxa gross profitka totalka waxay noqonaysaa 8,900 rent aan bixiyay tan waxa noqonaysaa expense rent waxa bixiyay 2,200 salary waxa bixiyay 2,500 marka waa ka sales alaabta iibin waxa noqonaysaa 22,900 ama maxay closing stock alaabta remaining oo shirkadu mataqaana leedahay closing stock oo ah alaabta inta soo hartay oo dastiga inaga noo taalo meerada noo hartay sanadka waxay noqonaysaa lacag 6,000 oo lacag 6,000 ay noqonaysaa haddaan eegno business transactions waa kan lacagta inta waa 6,000 halkaas iyo maanta casharkaynu nagu soo ekaanaya sida loo sameeyo waxaan malaynayaa inuu fudud yahay in ku celcelino inaguna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh